mas-uul ka tirsan dowladda Burundi ayaa sheegay in askar badan looga dilay dowladdaas weerar ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya. wakaaladda wararka AFP ayaa baahisay in ka badan 10 askari dowladda Burundi looga dilay qarax miino oo ciidan ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta AMISOM lagula beegsaday inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Jowhar, waxaana lagu wargeliyay weerar wadada loogu galay in tiro ciidanka Burundi ah lagu dilay ayay wakaaladda ka soo xigatay sarkaal ka tirsan ciidanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Cabdikariin Xasan. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Burundi kuna sugan magaalada Bujumbura ayaa AFP telefoonka ugu sheegay in 12 askari dowladda Burundi looga dilay qarax miino 6 kalena looga dhaawacay. waa sax, nasiib darro 12 askarteena kamid ah ayaa lagu dilay 6 kalena waa lagu dhaawacay weerar shalay al-shabaab kula beegsadeen xilli ay ka soo noqdeen howlgal ay ku joogeen Jowhar oo ay Muqdisho u soo socdeen, ayuu u sheegay sarkaalkan ka tirsan dowladda Burundi wakaaladda wararka AFP isaga oo diiday in magaciisa la baahiyo. al-shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda qaraxa ayaa war ay baahiyeen warbaahintooda ugu sheegay in ay ku dileen 14 askari oo ka tirsan ciidanka Burundi. goobtii weerarka lagula beegsaday ciidamada Burundi ayaa saaka xiran, waxaana ciidanku ay halkaas ka sameeyeen miino baaris si ay uga badbaadaan miinooyin kale oo ay suurtagal tahay inay al-shabaab wadada ku aaseen. sabtigii ayaa meel aan sidaas uga fogeyn meesha ay al-shabaab ku beegsadeen ciidanka AMISOM waxa ay qarax miino ku dileen 5 xubnood oo uu ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenkii dhanka maaliyadda ee gobolka Shabeellada Dhexe. miinooyinka dhulka lagu aaso waa xeelad joogto ah oo ay al-shabaab kula dagaalamaan dowladda Soomaaliya iyo ciidamada taageera, waxaana xusid mudan in miinooyinka ay al-shabaab wadooyinka ku aasaan ay si aan kala sooc lahayn u dilaan cid walba oo wadada adeegsata. sida ka dhacday wadooyinka labada Shabeelle, gaadiid ay dad shacab ah la socdeen ayaa xilliyada qaar waxa ay ku aadaan meelaha ay al-shabaab miinooyinka ku aaseen, waxaana halkaas khasaare badan uu ka soo gaaraa shacab birimageeda ah.